بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدوميها أقل كسرة مدن عبد حاشي عبد الله رئيس وزراء كحيانك حكومة الفدرالية الصومالية warbaahinta dhammaantiin subax wanaagsan. waxaan maanta ku faraxsanahay inaynu halkan iskugu nimid gudoomiyihii aqalka sare ee ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka xukuumadda federaalka iyadoo lagu soo afjarayo waxoogaa isfaham waaya oo bariyahaasi jiray oo la xiriiray qabsoomidda doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka gaar ahaan kuraasta xildhibaanada gobolada waqooyi Soomaaliland. waxaan halkan idinku akhriyi doonaa insha Allah heshiis ay gaadheen labada xubnood ee ugu sareeya siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Soomaaliland. heshiiskuna wuxuu dhacayaa sidan. bismillaahir rahmaanir rahiim. gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdilaahi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar markii ay tixgeliyeen wada jirka dadka midnimo doonka ah ee ka soo jeeda gobolada waqooyi Soomaaliland iyo danta guud ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed ugu jirta qabsoomidda doorashooyinka. waxay ku heshiiyeen in la soo afjaro khilaafkii labada dhinac u dhaxeeyay ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobolada waqooyi Soomaaliland. 2 in la mideeyo gudoonka iyo xubnaha guddiga maamulka doorashooyinka heer Soomaaliland iyadoo garabka gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdilaahi ay qaadanayaan gudoomiye ku-xigeenka guddiga iyo madaxa amniga iyo logistikada. 3 in la soo afjaro isku xaysigii iyo abaabulkii u dhaxeeyay siyaasiyiinta gobolada waqooyi loona midoobo hirgelinta doorasho hufan oo aan daahitaan lahayn. 4 in sida ugu dhaqso badan loo gudagalo hirgelinta doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobolada waqooyi Soomaaliland. heshiiskan waxa lagu gaaray magaalada Muqdisho 5 bisha 9 2021.